سودو سيدا aragtay heshiiska madaxweynaha Soomaaliland oo la galay dawladda Itoobiya waa dhawahay ran waxaan leeyahay oo jeedin qaraha laga gatay ummadda ma qara ka hadlaan min madaxweynaha Soomaaliland sidoo macnaha heshiiska oo la gaaray dawladda Itoobiya sida aragta oo badda iyo siyaasad baan la soo aadaysaa urani wax naga gatay haddana waxaan diyaar u nahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay Itoobiya ku garaacno way iska celeynaa yaabaha ay ku socoto way u aaminsan tahay in musabbix dalka u saxiixi karo والله بالله تالله إننا بين شيئين صومالي ومدوبي وأنا ماشي صومالي وكل مدوبي لهت صومالي مدودنا إثيوبيا ويتقانا المسبحي بدأ أولي واقتي وحول الصومالية هذا منع وذكر أمة الصومالية كده حساء شو هذا صاحبي هل كأي قد داوني السنوات بيت كيجي السوريان هدي أتكلم صبته عن كعصني أنا بيت كان ليك صارته فلونا دهته شيء سكودا في المركز وربح ندى أنا كان كسو قد بدونه ما توحر بين المكروف كلا ده حقادو بالشوين تكودا عند جمد الجرعال sida ay u arkaan heshiiska madaxweynaha Soomaaliland Musabbixi oo la gaaray dawladda Itoobiya magacayga waxa la yiraahdaa Suldaan Yoolax Ali Xaashi Cilmi waxaan ku noolahay gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Gurceel waxaan ahay Soomaali original aan ahay oo Soomaali aan ahay horta heshiiskii ay wada gaareen Itoobiya iyo ninka la yiraahdo Musabbixi waxa weeye waa shakhsi iyo dawlad waxay wada gaareen weeye dalka Soomaaliya dawladda uu leeyahay waagii jamhadiintii soo galitaanka oo ay ma ahan dalka Soomaaliya hadda dawladda uu leeyahay dawladdiisa ayaana daafaha dalka kontrolsha insha Allah taala bidnaalkin dawladdaasuna waa dawladda uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dal xoreeyay oo hogaamiyaha ka yahay shacabka Soomaaliyeedna waxa la gudboon inay ka dhiidhiyaan heshiiska oo galay shakhsiga Biix Cabdi dhulka Soomaaliya Soomaali baa leh badda Soomaaliya Soomaali baa leh hawada Soomaaliya Soomaali baa leh cid kale oo go'aan ka gaari karta mal dalku baarlamaan uu leeyahay golaha fulineed uu leeyahay golaha senataraha uu leeyahay oo dalka dhan matala insha Allah taala bidnil karim waxaan ayaga ahaynuna go'aan kama gaari karaan waxna kama soo qaadi karaan musabbixina waa shakhsi Soomaaliya oo dalka Soomaaliya heshiis kama gali karo dawladda heshiis gali karta insha Allah taala dawladda Itoobiya kawaan toobi weyso waxyaabaha ay ku socoto way u aaminsan tahay in musabbix dalka u saxiixi karo والله بالله تالله إننا بين شيئين صومالي ومدوبي وأنا ماشي صومالي وكل مدوبي لهت صومالي مدودنا إثيوبيا ويتقانا صومالي مدودنا إثيوبيا ويتقانا ما أنت وحبا اسمرنا إنه وحبكم كلا فوقين وحان وقديجي إن إثيوبيا دالك الصومالية تاكا إلى هاي هشيس درا إنه كوسوقش هشيس درا إنه كوسوقش ويا عندما بحال رادينا وحياب اللي رادو مدوجا بريق أفريقيا مدوجا سنترال أفريقيا مدوجا الجوبي مدوجا الجوبي بريق برتمها أفريقيا وإثيوبيا كميتها الصوماليين كميتها يعني إثيوبيا على قرارات قليل يستن علاء نو أساسين يستن دجال نو أساسين دجال أساسه يسكت دجال أساسه أنه هو كتشوا بينا أنه ولي عدود ميليتري عدود شعب عدود بالك هو هاي الدعاء أنت وايسن أيوة أحمد عبد الحسن وحارنا ما أنت إن كديب إنه أركتنا نذا كأدن بدل نذا سيدا قلت كأه لوجو صحيح هاي إثيوبيا oo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay hamiga ku hayeen oo ay maqlaayeen oo mataqaanaa ay dareenka ku hayeen in Itoobiya badanada u soo hanqal taagayso marka waxaan rabnaa eray yar inaan ka dhaxno midda koobaad waxaan leenahay horta saxiixaas la saxiixay wax ka jira ma leh sababtoo ninka saxiixa oo wax saxiixay ma aha nin mataqaanaa Soomaaliya matala sida dastuurka ku qoran ninka wax saxiixa waa inuu yahay madaxweyne iyo dawladda markaas madaxda xilka haya inuu qof dawladda uu yahay marka musabbixi waa maamul goboleed waliba xaq jir ah marka dalkana waxa waay Soomaaliya dhammaan ka dhaxaya badanadana wakiilka ah mana bixi karo taas dan ka soo tagno shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan dalkii adinka dadkii dilay adinka dadkii inaad ku noolaatiin diiday adinka qabiil isu laayay adinka maamul goboleed isu laayay sidaas darteed cadawgii idin soo doolay inuu dadkiina kala baxo waa mataqaanaa adinkaas u kalifay marka waxaan rabnaa Soomaalida shacabkeeda u sheego waxaa la yiri hadii mataqaanaa libax yimaado ruwaay waa nin cidda marka waxa waaye ruwaaga cal naga xageeyo oo waliga cadawga naga haya soo dhacay hadda oo dalka naga soo hanqal taagay marka waxaan leenahay Soomaali xagga inta wax dhaxdana dhigno aan dhicinno dalka naga loo soo hanqal taagay aan ka cilin dadka dhiiga sokeeyaha iyo walaalaha la daadinayo xataa nimanka al-shabaab la yiraahdo waxaan leenahay halkaas aan noo balana dhiiganaga iyo mataqaanaa waxa naga dhanna waxa waaye waa adbasoo kaliya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leenahay Abiy Ahmed
madaxweynaha aan ognahay inuu nin madax ka xanuunsan yahay waan uga digaynaa waxaan leenahay madaxweyne ka joog mar saddexaad ka joog haddii aad jabido qawaaniinta caalamka u dhigan iyo sharciyaasha qaramada midoobay iyo beesha caalamka u dhigan waan iska dhicinaynaa Soomaaliya intaan idoo ka yar ayaa waxa dhici waayay ninkii aad ogeedeen man sanaway Soomaaliya wax ku soo bartay waxaan u sheegaynaa nimankaas macuusiya madax ugu duwan yihiin man dhici karaan mana dhici doonaan insha Allah waxaan ugu baaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxay ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta wax Soomaaliya khilaafka dhaxyaal dhinaca la iska dhigo marka ay timaad arrimaha masiiriga waa inaan la gelin waxyaabo gargoorta oo danta shacabka aan wax gargoor la gelin annaka dhulkeena taaka kamida ma ogolin wixii hore loo qabsaday inaan soo celin isku dayeynaa mana dhacayso waan u dhimanaynaa naftanadana u bixinaynaa madaxweynaha madaxweyne isku sheegan Muuse Biixi ninka ay leeyihiin maamul goboleedka horta Soomaaliya maamul goboleed laga baabiyo waa mid aad u doonay oo hal dawlad ay noqoto oo dawladda federaalka hoos tagto maamul goboleed dibaatada uu keenayo waa arrimo qabiil oo saxiftiifa ummadda Soomaaliyeed waan uga digayaa wax ka socda Puntland waa u jeedaan markii laga bixiyo kooxda qawaariista al-shabaab waddanka laga saaro waad arkaysan dibka soo cusboonaaday maamul goboleed wax ka yimid nin isku dayay inuu guri meel oo dhigtay dalkii Soomaaliya ama dantii Soomaaliya uu ka dhigo meel oo dhigtay oo asagu leeyahay ma birin oo leeyahay inuu dhigtay inuu goobaysto ma dhacayso mana dhici doonto horena ma dhicin awyaashana ma sameyn anakuna sameyn doon bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad baan u salaamayaa salaan ka bacdi waxaan leeyahay musiibo in muddo ah Soomaaliya looga digayo qayb kamid ah ayaa ku habsatay ninka asaga ahay oo Muuse Juudaan ahay badda Soomaaliya qayb kamid ah ayaa wuxuu jeclaystay inuu siiyo adagoo gumaystaha soo jireenka ah in muddo ah dhibaatada ku hayo ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay Muusena waxaan leeyahay runtii waxaan leeyahay Muuse wax yar oo ciyaalka yarka xataa ay ku riyoon oo ku riyooday badda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed ee askale kaligaadana ma bixi kartid horana Soomaali waxay ugu maamahday ushaada waxa loo dhiibtaa qof aad adhoodi ka qaadan kartid 20 kilomitir isku weer ah qofkii bad laga siiyo ciidan badeedna samaystay adhoodi inta aad ku fariisan sidee badda adhoodi uga qaadan kartaa ilaa awood aad kaga difaacdo midna ma lihide Soomaaliya maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan baan u naqaanaa jamhuuriyadda iyo dawladda ma heshiis ma gal karo heshiis soo ku galaba ma yaqaan sababtoo dalkan madaxuu leeyahay wax madaxda ka sukaya oo madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaare Xamse aan ka ahayn oo heshiis dalkan Soomaaliya ka gali kara ma jirto shacabka Soomaaliyeed waxa ugu baaqayaa horena dalkan way u yaqaaneen sidii iskaga difaacaan halka inta badan dalka Soomaaliya laga difaacana waa gobolada dhexe in laga difaaco dalka Soomaaliya cadawga soo jireenkaana ayaan ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqayaa xasan tahay wariye Suuriya aniga shakhsiyan heshiiskaas dhexmaray madaxweynaha maamulka Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaan u arkaa mid aan guud ahaanba waafaqsanayn marka koowaad heshiisyada caalamiga ee la gali karo sidoo kale waxaan aaminsanahay in heshiis ku saabsan dhulka Soomaaliyeed wax quseeya uusan gali karin madaxweyne Muuse Biixi aysan sharci ahaan aysan suurtagal ahayn madax banaanida wadan waxa uu ogolaa kara wadanka uu ka go'aayo tusaale waxaan dareensanayn in 20 kilomitir oo ku bedeshay saxiix ah in madax banaan la siiyay madaxweynaha Soomaaliland waxaan ognahay banaanbaxyada iyo waxyaabaha ka socday maanta Hargeysa madax banaanida Soomaaliland xitaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma sii karo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ma bixi karo madaxweynaha madax banaanida Soomaaliland waxa bixi kara afti dadweyne oo dadka Soomaaliyeed laga qaado si kale kuma heli karaan in qofka aniga iyo adiga inta noo yimaad yiraahdo Soomaaliland inay Soomaaliya ka go'da Soomaaliland Soomaaliya ma ka go'i kartaa ha iyo mayadaas afti noocaas ayaan aaminsanahay in lagu heli karo madax banaanida Soomaaliland fariin waxa dirtay maanta Hargeysa shacabka ku nool Hargeysa fariintii direen waxay tahay in dadka shacabka ah aysan ahayn waxa diidan madax banaani in macnaha la midoobo waxa diidan shacabka ma tusaale magaalada caasimadda way ahayd Soomaaliland ee caasimadda labaad ee Soomaaliya ee Hargeysa dadkii joogay maanta dareenkoodii waa aragnay taas waxay cadeynaysaa in siyaasiyiin dana gaar ah ay isku dirayaan dadka shacabka ah ay mid yihiin waayo maxaa banaanbaxa Hargeysa ka dhacay kamid dhiga midka Gurceel ama Muqdisho ama Soomaalida kale ee koonfurta iyo bartamaha ka dhicilaa maxaa ka dhicilaa kala ka dhig waxa ishaya marka waa siyaasiyiin ee ma ahan dadka shacabkan waxa ugu baaqaa midnimadooda iyo awoodooda inay muujiyaan heshiiskaas waxaan ka aaminsanahay inuu yahay heshiis baadila oo wax ka jira la erag oo maamul goboleed oo la heshiiyey
annagu haddaan soomaalinahay annagoo intaan ka tabar yar oo ka quwad liidana aan qab iyo isla weyne iyo kibir iyo gumaysi diidna haddana waxaan diyaar u nahay haddaan nahay dhallinyarada Soomaaliyeed inay Itoobiya ku garaacno waa iska celaynaa wax allaala wax aan hub iyo shabaab noo jeeda ayaan u jeedinaa annaga iyo shabaabkana waa israacina madaxweynaha Soomaaliland inuu yahay madaxweyne goboleed saas daradeed uu saxiixi karin badda Soomaaliya waxaan leeyahay marka isku daygaasi waa mid aan hirgelin haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ka soo horjeednaa saxiixaas shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay kaca baddiinni waa la dhacay qoryihiina qaata soo dhacsada baddiinni difaacasho inta wax alla wixii loo baahdo dhulkan anagu qof shakhsi madaxweynaha Soomaaliya ma dhiibi karo xukuumadda dhiibi karin baarlamaanka dhiibi karin wadankan waxa iska waa dhaxal dadka adda nool iyo kuwa sii dhali doona dhulkan iska leh marka waxa waaye niyo xukuumadda maanta wasiirada go'aamada ay qaateen xataa aniga aad igula shircsanaaday marka waxaan rabaa go'aamada adag in laga gaaro xaaladdeeda adartaan waa gifaada waa xanaaq wax ugu jira xanaaqsana marka waxa waaye mikrofoonkan ayaan u maleyn baa isaga qabanay barkaad magayga waa Cabdirasaaq Maxamuud Mustafa ma bagayga ka hadalaanay degmo oo la saxiixay dalka Soomaali ma bagayga ka hadalaanay saxiixda oo la saxiixay badda Soomaaliyeed qof saxiix qoran ma jirto qof ummadda Soomaaliyeed ma baan dardaarmaanay intii on saxiix qorayna badda Soomaaliyeed waan ambi qorayna ما يبشانا موسبي أنت بدأس بيه اللي صحيح اللي موسبي ولا مسحيح كور ولا ما بيكور ولا ما ديدو كور موسبي ما يبقى أنت شايع أنا وصلنا أنت ولا بيكور ولا أنت صحيح كوراينا موسبي ما يكمل سي معمل جولات أنت صحيح كمل سي موسبي ما فهمت أنا جاي صومد صوم معمل جولات أنت بديا معمل جولات أنت صحيح كمل سي موسبي صحيح واحد ما بيكور من دلكت مذهبين يالك وقف واحد صحيح كور مذهبين يونا مذهبين كي هيجين يزيل وزارة كاس وحيابهن hunguriga ah ee Itoobiya ee damacday Soomaaliya dhulkeeda wax aad iyo aad looga qoomamoodo waaye xanuun badan leh intii muwaadin Soomaaliyeedna waxaan farayaa amaan ogeysiinayaa inay dhulkooda difaacdaan qof kasto oo ninka la yiraahdo nafi ku jirto oo dhulka ka sareeya ninka la yiraahdo aan dhulya lahayn aan cuuriyaan ahayn waxaan ku guwaabinayaa waxa laalay wuxuu heli karo inuu qaato xuduudda Soomaaliyana uu aado dhulkiisana uu difaacdo Muuse Biixi badda uu leeyahay waa gatay waxa waa wax wala Soomaaliyada mana oo gada karo ummad Soomaaliyeed ka dhaxaysa lacag uu qaatay waxba isdaalinin ma oo gada karo wuxuu tusay shacabka Soomaaliyeed fikradiisa uu tusay mana oo gada karo aan ka aaminsanahay waa in wax lacag lagu qaatay madaxweyne ma waa qof lacag qaato shakhsi lacag qaato Soomaaliyeed waay waxbana ma uu soo qaadanay shacabka Soomaaliyeed oo sharaf xumeeyay teeda kale Abiy Ahmed aqoonsi ma sii karo Soomaaliland waa maamul ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynuhu sheegana taaka kamid dhulka Soomaaliyeed cid lama sii karo teeda kale badan waxa iska leh ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed annaga iska la badan assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh magacaygu waa Iskari Abdi Ahmed oo ku nool degmada Gurceel oo ah arrimaha badda oo siiyay badda annada oo siiyay Itoobiya Muuse Biixi hadduu ka soo celin waa shaydaan kala jirin waay hadduu ka soo celin Soomaan Ilaahay Qur'aanka midi imishaaral dhaca baaster way ma badda oo siiyay Itoobiyaanka heshiiskaas waxaan u arkaa inuu yahay fargelin qaawan ay nagu sameynayso Itoobiya iyo Soomaaliland wax heshiis ama dhaxmari karaan dhulkaanuna dawladda Soomaaliya xitaa bixi karin cid bixi ka dhahay ma jiro dhulkaani annaga waxaan ka nahay ilaaliye waardiye ayaan ka nahay waxa iskala jiilalka dambe oo soo dhala doono jilba-jilkiisa kala waardiyo ayuu ka yahay iyo inuu difaaco uuna ku dhaqmo ayuu u joogaa ma aha qof bixi kartaa Soomaaliya ma joogo waana fargelin qaawan ka dhan ah Itoobiya ay nagu sameysay waxaan dhihi lahaa madaxweynaha Soomaaliya inuu safiirka jooga Itoobiya Muqdisho fadhiyaa inuu diro si degdeg ah ugu dhaqsiyaha badan keenana oo dalka dib ugu soo noqdo